iyadoo dhamaadkii toddobaadkii tagay iyo bilowga toddobaadkanba ay dunida qaybo badan oo kamid ay ka socdeen dabaaldegyo loogu dabaaldegayo maalinta haweenka adduunka ee la xusayay boqolkii sano ee ugu dambeysay ayaa waxaa Soomaalida degan wadanka Holland ay qabteen munaasabad arrintaasi si weyn ugu muujinayaan waxaana ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo u badnaa haweenka da' waliba leh iyadoo ay soo qaban qaabisay munaasabadan ururada kala ah Ammaan Aasiya Hanuuniye Samawade iyo hay'adda weyn ee Nidsomo iyadoo dhinaca dhaqaalaha iyo maamulka munaasabadaasi si weyn garab uga siinayay ururadii soo qaban qaabiyay munaasabadan ayaa waxa ugu horeyn kelmado furitaan ka jeediyay Sheekh Muuse oo kamid ah culimada Soomaaliyeed wadanka Holland isagoo si weyn ugu amaanay hooyada kaalinta ay kaga jirto daryeelka qoyska waxaana dhinaca kale isna halkaas ka hadlay mas'uul ka socday dawladda hoose ee magaalada Heego isagoo u qaabilsan dhinaca isdhexgalka kalena waxa si weyn u soo dhaweeyay munaasabada haweenka Soomaaliyeed kaalintooda kaga muujinaya maalinta haweenka adduunka intaas kadibna waxa iyagana halkaasi siyaabo kala duwan uga hadlay Xamse Sheekh Xuseen Hanolaato iyadoo ka hadlaysay afka ururadii soo qaban qaabiya munaasabadan iyo Sahara Kooshin oo iyadu ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee farakutiriska ee ku nool wadanka Holland kuwaas oo siyaabo kala duwan u cabiray dareenkooda qodobka ugu muhiimsan uu yahay sidii aan uga qayb qaadan lahayn daryeelka haweenka Soomaaliyeed ee dhibaataysan oo uu dilooday colaadda uguna sii darsantay abaaraha run ahaantii ammaan gaar ah ayaan u soo jeedinaynaa haweenka gudaha ku jira dulqaadka iyo qiimaha iyo ka hortagga sida ay ugu dadaaleen in wadankii nabad uu ku soo dabaalo 20 sano because waxa la yiri ingiriisi ku mahan hadaa hal nin aad wax bartid shakhsi wax bartay hadaa laakiin aad dumar wax bartid qoyskii oo dhan يعني عروتي يدومك كبداس انت شيء الفاميلكي يحصل ديو دن اياد بنفيت وين سي تاسنا waxay muujinaysaa in hooyadii ay tahay furihii xiriga furiyeen guriga oo muhiim ay tahay oo iyada hadii caafimaad jirto oo aqoon leedahay in erkaas uu yahay badbaadi kara ku badbaadi kara xataa ku gaar socdo dhinaca kale intii socotay munaasabada lagu maamusay maalinta haweenka ayaa waxa halkaas lagu soo bandhigay barnaamij talk show oo ay sameynayaan haweenka goobtaasi fadhiyay iyadoo lagu wareysanaya qaybaha kala duwan ee haweenkaasi ee leh hooyooyinka iyo gabdhaha halkan ku koray waxaana barnaamijkaasi daadihinaysay Sahara Muuse oo iyadu ah madaxa ururka Samawade ee kamid ah ururadii soo qaban qaabiyay munaasabadan waxaana ku wareysatay Sahara Naaleeye iyo Qadiijo oo labaduba kamid ah haweenka Soomaaliyeed ee da'yartay da'weynta leh ee ku nool wadanka Holland maanta wallahi waxaan ku faraxsanahay intaan oo haweena oo isku yimid gaar ahaan waxaan aad ugu faraxsanahay dhalinyaro yar yar oo gabdhahayga kala ah inay ka soo qayb galeen taas waxaan u arkaa farxad weyn ayna tahay maalintii haweenka aad iyo aad baad mahadsantahay qudhaydu taa waan kula qabaa waayo dhalinyaro ayaa u badan sidee baan wadankii wax uga qabanayna ma ka sii hadashaan hadda waa laga sii hadlaa sababtaas abada maalin maanta oo kala loo imiday waad u jeedaa dhalinyaro badan inay xaggan joogto taasna waxay ku cadeynaysaa inay dhalinyartii ay rabaan inay ka warhayaan dadkoogii dhaqankoogii iyo wadankoogii ma ilaawayaan marka hadda ka bacdi waxaan oo kala hadaan la qaban qaabin karayo aan xataa anagii gacmaha la gali karno waad arki doontaa step by step inay wixii gadaal ka iman doonaan insha Allah ugu dambeyntiina munaasabadan ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay barnaamij hidde iyo dhaqan iyo heesaha halkaas ay ku soo bandhigeen qaar kamid ah fanaaniinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadankan Holland ku nool iyo idan kale bahay loogu furan baaqada ilaahay Abdulwali Ibrahim Garyare Universal TV Hague Netherlands